السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسن دمان أصحابتها يوغو حران كسو لوادا شيكا عجيبة ودحمرتينين إيو حاس كيسا وانا شيكادا سعوان كيدو يهي فشل كي قددا فضلا سي شيرقريه oo la wadaaga asxaabtaada nin ayaa xaaskiisa ku yiri waxaan u xiisay reerkayga maadaama nin muddo ay sarag waxaana doonayaa in bari aan casuumo oo aan qado u sameeyo xaaskii ayaa iyadoo aan warkiiba sugin oo xanaaq ka muuqdo waxay tiri insha Allah way iska hagaagi doontaa ninkii ayaana yiri waa yahay waan wacayaa waana casuumeynaa ee ku tasho subaxii dambe ayuu ninkii shaqadiisa iska aaday hal saac kadib ayuu guriga ku soo laabtay maadaama duurkii casuumad ay jirto markii uu guriga yimid ayuu xaaskiisa ku yiri miyaad karisay qadadii maxaa yeelay reerkaygu way imaan doonaan saacad kadib xaaskii ayaa ku jawaabtay maya ma karin qado sharaf waayo reerkaagu shisheeye ma ahan wayna cuni karaan cuntada gurigeenna taalla ama noo karsan ninkii ayaa yiri allow kuu dami dhaaf maxaa shalay igu sheegi weyday inaad qado karinaynin maxaa yeelay reerkaygu dhowaan ay imaanayaan maxaan sameeyaa hadda xaaska ayaa ku tiri wax oo ka raaligeli arrintaasi una sheeg inaysan shisheeye ahayn oo ay guriga iska yimaadaan ninkii isagoo xanaaqsan ayuu guriga ka baxay shaqadiisii ayuuna dib ugu laabtay daqiiqada kadib albaabkii ayaa la soo gargaraacay xaaskii ayaa kacday oo albaabka furtay cajiib naxdin cidday albaabka ka furtay waaba qoyskeeday ku jiraan aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheeda aabbaheed ayaa ku yidhi aaway ninkaagii waxay ku tiri waxya ka hor ayuu baxay aabbaheed ayaa ku celiyey shalay ayuu qadanno uga casuumay maxaa ku dhacay inuu guriga ka baxo innagoon imaanin ku sababay xaaskii ayaa warkaasi aad uga naxday waxayna ilowday inay gacmaha madaxa saarato iyadoo la yaaban in cuntada guriga taalla aysan u habbooneen una qalmin qoyskeeda waxayna telefoon u dirtay ninkeeda ku tiri maxaad iigu sheegi weyday inaad reerkayaga qado ku casuuntay wuxuu ku yiri reerkaagu waa kayguna waa kaaga ma jirto wax farqiya u dhaxeeya iyadoo xishoonaysa ayay ku tiri waayee fadlan cunto diyaarsan hore noogu soo qaad oo maqaayad ka soo gad markaa imaanayso maadaama cuntada guriga taallo aysan u qalmin reerkeenna ninka ayaa yidhi aad ayaan uga xumahay meel fog ayaana joogaa reerkiinna ma ahan marti ee sii cuntada guriga taalla sidaa aad adiguba rabtay inaad reerkayga u siiso cuntadaasi markiiba teleefonka ayuu ka jartay qoyskeediina waxay cuneen raashinkii aan micnaha lahayn ee gurigayaasi yaallay haweenaydii ayaana waxay ku noqotay arrinta filanwaa aadna uga naxday haddaba ogsanow qoyskaaga iyo qoyska ninkaaga in ay isku mid yihiin gurigaasina ay u wada siman yihiin haddiise aad noqoto qofkiisa keliya fiirsada tan oo kale ayaa kugu dhici karta.